kuwana waa xikmadihii a.p.j abdul kalam saynisyahanka caanka aan horena uga soo hadalnay xikmadihiisa ku saabsanaa guuldarrada. kuwa xikmadahan waxay ku saabsan yihiin guusha, kuwaasoo wallaahi aad kuu saamayn doona, weliba aad ula diyaabi doontid. bal haddaba isla eegno xikmadihiisii guusha ee ku saabsanaa. shalay kaga hadal naftaada subax kasta, aniga ayaa ugu fiican, waan qaban karaa, ilaahay ayaa had iyo jeer ila jira, waxaan ahay guulayste, maanta waa maalintaydii. aad ayuu fududahay inaad qof jabisaa, laakiin aad ayuu adag tahay inaad qof ka guulaysataa. ha kaga guulaysan dadka muran, halkaad uga guulaysan lahayd aamustii. maxaa yeelay dadka badanaa doona inay kula murmaan, uma dulqaadan karaan aamusnidaada. guushu waa gaadhi taasoo ku socotaa taayiro loo yaqaan, si adag u shaqayn, safarkuna suurtagal maaha la'aanta shidaal magaciisu yahay kalsoonida nafta. dallaayaddu ma joojiso roobka, balse waxay naga caawisaa inaan roobka u istaagno. sidoo kale kalsoonidu kuma sii karto guusha, balse waxayna siisaa awood si aan u wajahno caqabadaha nolosha. waa maxay sirta guushu? go'aannada saxda ah. sidaad ku heli kartaa khibrad go'aannada qaldan? mar kastood dareento inaad guuldaraysatay, kelmadahan dheh maan guuldaraysan, balse guushadii dub ayaa loo dhigay. guulaystayaashu maa kuwaan guuldaraysan, balse waa kuwaan joojin. waa inaad dhahdaa waxaa noqon doona kabtanka dhibaatooyinka, waan jebin, waanan ka guulaysan. haddaad raacdo afar shay, kadib wax walba waa lagu guulaysan karaa. in aad leedahay ujeeddo weyn, inaad aqoon heshid, si adag u shaqayn iyo dulqaad.